بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسلام يا دمان بالشوينتا سومالي لان ملك ستيتشو جنبا وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تشركي جنوح الدارية هاي إن بدن أيها وحنمك أنتي دورشة اللقاء سوق جدبي وحن مقلي موسى على وحن دنيا نحليه حنفتي دورشة كذا عادي doorashadii dhacday dalka ka dhacday 13 November 2017 xanaf badan iyo kala qaybin badan iyo bulshada maanta kala qaybsan ayaa laga dhaxlay anigu kulli raayigayga ma aha hadii aan ka hadlo maanta waxa umada kala qaybiyay ma aha helitaanka uu iyo boobka uu madaxweynuhu boobay kulliba waxaweyaan xusbul xaakimku meel kasta adduunyada inta Afrikada aynu ognahay Afrikadu iska kursiga jeceli way adag tahay sida looga badiyaa waxaan dadkii ololaha ugu weyn ugu jiray inaan kulmiye helin haddana back of my mind maskaxdayda xageeda dambe way aaminsanayd inuu iman karo ku shubasho taasi qof kasta oo wadani ku jiro oo aqli leh oo wadani oo taageersan way ogyahay dawlad xusb al-xaakima sida looga badiyaa inay adag tahay amba ha ku shubtaan amba waxa musuqaane kulliba inay adkayd way wuxuu hayay way jirtay mushkiladu taamaha oo dadku waa kuwa aaminsanaa iyagoo dadaalaya haddana in ay dhici karto in uu kulmiye mar walba gar iyo gardarro muuse ku fadhiisan karo dadka maanta waxa kala qaybiyay waa laba qodob anigu sidaan aaminsanahay waxa weeyaan muuse ololihii ku galay oo ololihii ku hadlay oo yiri xusbiga wadani waa Soomaali weyn dalkana lagu aamini maayo ilaa haddana aanaynan arag fagaare tii uu ka yiri lafteedii uu ka lahaa Soomaali weeyaan meel uu raali gelin ku bixiyay aan jirin qodob waa kaas oo de qodobka muuse ay hor yaalo bulshada qaybiyo Soomaali dadkii wadani u codeeyay min sayla ilaa iyo min baran de waxay soo haystaan inay Soomaali weyn ilaa waxa isaga ka yiri public in Soomaali weyn yahay sida aynu ogsoonahay doorashada saddex institution baa la dagaalamayay oo mid yahaa de xisbiga midna ahayd dawladii midna ahayd commissionki iyadoo taa laga soo gudbo haddana waxa muuse muu ku hadlin muu oranin muuse waxa weeyaan markii ay dhacday doorashadii laga soo baxay de muuse intuu meel soo taagay muu raali gelin dadkii muuse waxaan hadaba weydiinayaa calaamad su'aal saaraya wuxuu helay codka dalka sida ay u dhawaaqeen commission ku sheegu 50% 40 wadani baa helay haddii uu sheegay 40 inay wadani Soomaali weyn yihiin muuse ma wuxuu raadinayaa i'tiraaf iyo wada hadallo uu la furayo farmaajo 50% ayuu Somaliland helay ma 50% madaxweyne marka uu noqonayaa haddii aanu raali gelin ka bixin haddii aanu intuu mashruuc yimaado wixii uu dadka taageerayaasha xusbiga ku sheegay iyo dadka xusbiga aaminsanaa aanu raali gelin taasi horta waa mid oo muuse hortaala de question markna waxa weeyaan hadduu 50% isagu i'tiraaf u helaya amba wada hadal la fadhiisanaya de waa isaga hortaala talabaad waxa weeyaan xanafta labaad ee doorashada ka dhalatay waxa weeyaan doorashadii oo ay noqotay laba reer ay gacantiisu dhiibeen oo inta laba suldaan burca gacantiisu dhiibeen ay yiraahdeen codka nasiya oo ay dalkii jeegaan ka dhigeen dabadeetna markii doorashadii laga soo baxayna isagoo suldaan xasan yaani barbaraan qaadaya uu dabadeetna uu burco uu kiiri ugu hambaliyay jeegaan muxuu haayeen habar jecel ugu hambaliyay inay ma garanaysaa ay jeegaantu ay abaalkeedii soo celisay oo dalkii dhamaaba laga dhigay laba qolo oo hagbad ku wada jirta
taasina ay dhalisay inay dadkii saylac min baran joogay ee xisbiga wadani u codeeyay ay muujiyeen in aanay maanta dalkii labada reerun ay sheegteen iyo ku kasta u codeeyay kulmiyaba labada xanafood weeyaan labada xanafoodna ma xallin karto muuse oo isagu uu bedelo tacticada uu imika u isticmaalayo oo uu dadka si public la ula hadlo uu raaligelin ka bixiyo oo uu demagaranaysa dalkii ka dhigo muuse markii uu ololeynayay ee aynu ogeyn ololaha ku jiray wuxuu muuse ku ololeynayay inay siirto sinaan iyo cadaaladda muuse fayskii hore waynu aragnay waxay noqotay inay noqoto ku magacaabo digreyto madaxweyne 13 xil oo ka soo jeeda qoyskiisa taasina ma dhalinayso xanafta reebidda uu raadinayo waxa reebi karta isagoo dalka intuu isku shaandheeyay cadaalad ku dhaqa waayo khalad kasta oo dhaca waxa laga dambeeyay wanaag iyo cadaalad uu saxmi karaa laakiin haddii ay meeshii joogto khaladkii khalad laguma saxo bulshaduna maanta si weyn bay u kala qaybsan tahay oo boqolkiiba 41kaasi maba aaminsanaba marka waxa weeyaan siduu uu soo dabaali lahaa dadka maanta isaga dalkii madaxweyne ka ah waxa weeyaan si kasta gar iyo gardarabaha ku helo waa in uu noqdaa xanaf inuu ku saaro oo uu noqonin inuu yiraahdo hadduu isna laftiisuba uu tii jeegaantun quweeyo yiraahdo jeegaanta mooye hadday cidiba noolaato dadka kale waxay leeyihiin indho oo daway iyaguna way toosayaan oo maanta weydinka dadkii toosiyay dalka dal min dibad min bari muxuu haye min sayla ilaa min baran dadku ay maanta aaminsan yihiin inay jeegaantun dalka haysato marka cudurka jeegaanta ee dadka ay geliseen sida uga saaraysaana waa cadaalad muuse waxaan leeyahay oo doorashadii sheegaya muuse xanafteeda muuse doorashada dad baa ku dhaawacmay markii qartijacda lagu saarayay kursiga dad baa ku dhintay magtoodii ma bixin kuwii dhaawacmay dhakhtarka uguma tagin oo wali faamiliyadoodii maad u tagin sid markaa xanafta aad ku saari kartaa waliba wax kale iska daayay xitaa kuwii dhintay umaad quurin inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun marka waxaan leeyahay muuse oo aan muuse ku celcelinaya xanaftu lagu sheegi maayo oo waa la garan karaa sida xanafta loo xaliyo dalkana uu kala qaybsan yahay dalka sidaad isugu keeni lahayna aday kuu taallaa marka waxa weeyaan waxaan leeyahay muuse oo dalka isu keen boqolkiiba 55 ayaa sidii commission ku sheego ay ku siiyeen boqolkiiba 55 kaana itiraafna uma helaysid wada hadalna uma helaysid dalka waxaan ku leeyahay soo dabaal oo dalka isku qaybin iyo cadaalad iyo sinaan ayaa wax lagu wada qaybsan karaa Somaliland maanta waxay saaran tahay himilaayo buurtii himilaayo jarkeeda ay saaran tahay amba way dhici doontaa dhulkay taaban amba cirkay tagi labadaasna adun bay ku xidhantay maanta waxaan ku gabagabeynayaa hadalkayga doorashada dalku kala qaybsan yahay aday ku talasad u qaybin isugu keenayso iyo sida dadka xanafta uga saarayso waxa kale oo doonaya halkan inaan ka hambaliyeeyo nimankii iyaguna inay Somaliland hagbad la galiyo diiday ee ka soo jeeday beelaha jeegaanta ee kamid ah Xirsi Cali Xaaji Xasan ee kamid ah Ismaaciil Yare ee kamid ah Abibti Macad intaas intaan dhaafay waxaan leeyahay waan idinku hambaliyeynayaa waanan mahad hore Ilaahay baa la tadammaray idinka waan idinku mahadnaqayaa in Somaliland inay hagbad noqoto oo laba reer hagbad noqoto adiideen taan ku hambaliyeynayaa doorashada xanafteedii saasaan kaga baxayaa waxa kale oo bariyahan dambe ku jirtay saxaafadda in xusbiga in muxuu hayay la register gareeyay oo company Somaliland Investment Company la yiraahdo Dubai laga register gareeyay oo Saad Cali Shire iyo ay register gareysteen baashe de kulli isagu waa macruuf oo shaambado badan baa ku dhacay isaga aan waxba ka oran maayo arinta baashe laakiin ninka aan la yaabay musuqmaasuq qoyar socodka igu noqday waxa weeyaan Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda marka uu habeen dhaweyd baan maqlay isagoo hadlayo oo leh
وحويان قول أسويتي سوماليلاند والله هو أيام ضره هدي قول ضرك استوى سوماليلاند أسويتي أقول كل شيكتان مركز ريجستر قرين إنسان كومباني سوماليلاند كومباني انفسمن الذي هو سوماليلاند انفسمن كومباني شير هولدرنا كدغ إنسان وساردي مالية أتورتيجي أنت هلا جدي كيانسي مدحوينا إذن أبوينت جري 5 سنة اللي دينكوا أبوينت جري 5 سنة وحيلك ووريكت وكتجي إنسان كومباني الذي عندك على سوماليلاند ونبى كوسو دعية اللي بدي إنه من السكرتيري وصل ميسان سمسم الدوتاي اللي بدي إنه بورد دايركتور كيسكو قرتين يانسي وسارد مالية واحد كده حيسان من سيلع من بران dadka jooga cashuurtoodii ka dhaxaysa Soomaaliya dhaqaalaha Soomaaliland soo galiyana wuxuu ka dhaxeeyaa qof kasta oo Somaliland waa ayaan daro inaad dhiil u samaysataan markii dalkii baabaay ee meel walba iibiseen in risqa Ilaahay ku maqan ee ummada bixin doonto inaad dhiil u samaysateen oo ku sheegteen Somaliland Investment Company idinka oo ka ah ka talinaya oo ah dadkii ka talinaya وريجستر charity أو كلام وهي charity هي كمبيني قف كريجستر جريسون بالعقد معمولة مركز العقد لو سودي بنا ماشي ودونا كبحيان بتشي بدي قليا هذا دونا بقول كيبا سديت إن أنتوا يسكقوا طول لبعضن كل شيء يا سوماليلاند هذا بدتكوا عوان معها بدحونا قدوميها يقول حيدونكوا باقيين عسيشان هذا نادقوا كل إن أدق ونرصعد كمسقماس قاس سمايسي أيات هذا نلاهيد وأقول ما هو أقول درو مدحوينها أنا وحنا لنا هاي كومباني جا ليل كامركي دلكيو دل إيبيي ميل والب فرح اللي قليه ما أنت لا أركينا سوماليلاند ميل إيبياني هارين تدرك قريه يدقين مو يعني وحويا إن عد سميسان إن هو هاي عد مدحوينها أنا وحنا لنا هاي أرن كوانا كذا بتكتو ونما كاد حلالك ودي بتأدي مسقينتي مسقني ما هبه كان وابا ده واحد كنت المام كرنا بقرن منه وحويان ناب طلقة عدم مدحونا كاساكا إسلام تعشورته بحساتها ما عنده وسارد المالية ده كله عدا عشورته أيام الشيء هردل الجديد طلقة والكاس مريا وحلينا يكون بني جالسنا إلا بابيو مدحونا أنا وحنا لنا إن ما كان توجد كو عداي هذا شوابتي هذا كبحين كرو طلابات كقاعد كرتادي كشرته